That's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. We the king. Child Oka. Child Oka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أجيدان بوا صاحبكين سيكي مانتا waxaan rabaa in aan idin falanqeeyo filimkii isaga ahaa ee aan anigu aktarka ka ahaa jacaylkii markabka dushiisa qaybtii u dambeysay part 3 part 2 iyo part 1 hore ugu soo sheekeynay part 3 ayaan rabaa inaan idin sheego qaybihii igu dhibka badnaa qaybihii igu qosolka badnaa inoo bilaabo marka. Please subscribe sar channelkayga hana ka iloobin inaad furato gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. mahadsan. waa tahay waxaan ku bilaabi doonaa qaybta aan islahaa part 3 markii la sameeyay qaybtana ugu adag waxayna ahayd qaybta gabadha walaalkeed maxaa la yiraahdaa gabadha walaalkeed markii laga doonanayay iyada oo la weydiisanayay macnaha dadka duubay filimka iyo ninkii maaragtay isku dabarida ay waxay dhaheen siki ma tahay qaybtan mala kala googooynayo ina israacsatida la rabaa macnaha telefonkana waysa qof kula hadlaayo waxa weydiisanaysa in walaashiis uu ku siiyo de waxa uu hadashaa nin naag dooranayo oo kale meeshaasna ku soo afjar baash kadda iyo waa lagu soo celinaa ma jirto hoosaada wadaali dhahay sidee u doonta marka سيسي عن أخذ خصوصا وعلمها ولما عرفت انتصار يعني الحديث اللي قبل وحديث هذا ولا شيء حتى لو عم خصوصا يعني حديث لو خصوصا ولا إن الحديث مرة هذا صوت خصوصا وعي وهذا في أنا يقول خصوصا يعني خصوصا وعي هنا طبعا قبل ولا شيء Good job. Wow, perfect. wiilka isagana uu ka baxsaday run ahaantii waayo hadalka markuu bilaabay wuxuu ku bilaabay xoogaa yar ku adkeys Umar kee camal ana ma sameeynin in maaragtay aan dhaho Umar keebilo mutaqaadmiya ay waxaas waa loo dajiyay because waxa taa nin wax doonanayo dulqaadka ina badisida la rabaa mid kale odagan markii loo sheegay in oo walaashiis jecel lahayo kale lagu yiri deganaan waxoogaa sameeyay kubadda waa dajiyay isagana run ahaantii si fiican u baash u jiray barteedu dhigay labadeenaba waxaan sameynay weeygi lagu yaqaanay gabar la doonanahay aan barteeda dhignay iyo weeygi lagu yaqaanay ninka dhiibi lahaa soo hadli lahaa anyway taas waan ka cabsanayna waxaan isleeyahay waa lagu celcelin doonaa oo waa lagu celcelin doonaa laakiin waxay noo noqotay sidaan u rabnay si ka sii weyn okay markana qaybta qofta maqaayada loo waday run ahaantii qaybtaas waan awoodnay iyadoo gurigeeda ka soo baxaysa in la duubo oo
aniga gaariga gurigeeda horteeda intaan istaajiyo oo gurigeeda horteeda aan kasoo wada laakiin roob baa jiray jawiga ma fiicneen roob tixtiixayaa jiray sidaa ogeed waxaan ka dhignaba guriga ayadoo kasoo dhaqaaqday oo afaafka guriga hortiisa geed agtiisa inaan gaariga soo dhigo hore aan usii wado taasaan ka dhignay markii maqaayadda la tegay oo maqaayadda irideeda aan soo galaynay ee kursiga la fariisanayna meeshaas waxaa ku jirto arrin u baahneed in laga fiirsado oo haddii aan samayn lahayn meeshaas qalad weyn ay ka imaan lahayd laakiin waa ka foojignaadano muhiimaddu waxay ahayd iridda marka la soo galo qaybtan muhiimadeedaba waxay ahayd maqaayadda la soo galaayo marka iridda la soo galaayo qaabka gabadha wiilka gacanta ay u haysatay oo ahayd qaab romantic ah markii iridda ay soo wada galayeenna farxadda aniga aan muujinayay sheekada waad arkayseen si aan loo dareeminba ama loo dareeminba dad ay duulis ku socoto taas mid ay ahayd tan kale oo iyadana aada muhiim u ahayd oo xitaa markii laga soo tago filimkana hadda sameynayno oo real life adiga ku anfici doonta markii la soo galo ama gabar aad maqaayad ama hodheel u wadi marka aad gabadha fadhiisinaysid waa in marka hore kursigeeda aad usoo bixisaa aada usoo sikisaa kadib iyada markay halka dhulka la heshay fariisato markaas ayaad adiga fariisan kartaa xoogaa waa laga fiican yahay qofta intaad maaragtay idinkoo gacantiis haysta markaas u gashiin kursigaaga ku ordida fariisatid xabadii fariisaninba kamaa moo faarax iga siib xabadda horta meel ku ogow abuu romantic iska dhig kursiga u jiid ha fariisato qofta markay salka dhulka la hesho kadib soo fariiso markaas la heshay ka bilaabo kartaa taasna waxay ahayd bointi aada u qurux badan oo aniga aan la imid asxaabteydana ay igu hambalyeeyeen sabab waay adiga bilaash actor looma ah okay waxaa iyadana qosolkeeda lahayd qaybtan markii aan kusii soconay markabka iyadana waxaa socday jawi qabow zaa'id ah iyo roob beriisoo tixtiixaya laakiin qabowga wax kale ahaaba qabow weliba wuxuu ahaa dabeelo wato oo nooc kaleu ahaa marka waxaan kusoo soconay wadadii markabka aan ku tegi lahayn aan ku soconay markaas waxaa jiray marka dalad ay iyada waday anaa ka qaaday aniga iyada gabadha marka waa maasha allah gabar talented ah waaye waaba noo baxdaba sheeko oo runa iska galnay tobeec duubistiisa wuu watay alfanaan tobeec annaga waaba is ilowno macnaha sheeko kale oo caadi real life sheekaa noo socotay daladii markaan sii soconay waxaa iloobay inaan maaragtay garabkayga iyada inta ku sikiyo daladana asaan dhahaa iloobano because sheeko oo real life ay gashay waaba iloobaba inaan filim ku guda jirnay cabaar markaan soconay oo waxay aan sii soconay isa soo xasuustano kabacdi ilaa waxaa la saaray moogtaa music ma maqlaysiina kabacdi waxaan ku dhahay arxay tahay yaa maanta intii dambaa soo socon dhan yaa bilaa cimaamadaaba aheeday waa qosasho markaasaan u dhawaadan oo dalada aan ku sikiyey marka inta kale aan ilownay ee zaa'idka ahayd waxyar waa soo cunnay intaan aan kusoo darno iyadana waxaana ilowsiisay maadaama ani iyada jilinkeeda uu isfahmay tobeec inuu nagu dhibtooda oo mama baahneenba because qof iyadana jilinka ka diyaarsanay ahayd mararka qaar jilinka anagoo ku guda jirno aaba sheeko caadi rasmi iska sii wadanaynayba in kaamirad aan fiirina iyo iska ilow weli dalada dhinacayga jirtaa hadda kusoo sikiyey markana qaybtii u dambeysay ee filimka gabagabadiisa shuudkii u dambeeyey ee la duubayay run ahaantii shuudkan wuxuu ahaa shuudkii noogu dhibka badnaa maxaa yeelay dabeeshii isla maalintaasaa duubnay laakiin inkastoo saacado fara badan ay u dhexeeyeen haddana waqti dambe ayaan isla maalintaas duubnay marka roobkii wuu nagu sii saa'iday qabowgii wuuba kasii darayba dabeeshii way kasii dartay maalintaas meesha waa ku goonay been idiinma sheegay qabow zaa'ida jira micnaha
xitaa hargabaa ka qaadaaniga labadii maalin la xigtay hindhisa ku waashi qaybtaas markii aan duuweynay iyada dibadda aan naga isla soconno dibadda aan usoo baxnay ee tiri aaway baby dadka aaway camal kabacdi geesaa la fiiriyeyno ma doonaysaa inaa ogaato qofta la guursanayo haa ay tiri mogtaa aasaa jilbaa inta dhulka loo dhigtaa la yirino waa ku dhagax dhiga rabaa camal waxaas agtar lagaa dhahaa dadka banaanka joogaan ay dhahda baby awe oh my god thank you baby I can't believe it wallahi فاضل ايضا واحد كلا اسكندري فاهمه markay leedahay qabow ka kirno dadku waxa u maleeyaan jileen markay leedahay qabow najafooyo meeshaas iyadana waxa runaantii aad faadamo ugu baxsatay waxa kale ku jiray marka qofta wareejinay tubac way u adkeeyno siiwad kula siiwad waa siiwad adaa hal daqiiqo xoogaa mara wareejinay oo hadana waxay sii dhaasiiwad ariya stop ma dheeraana misbiya kurida okay sidaad u jeedeenba filimka intaas ku dhamaaday run ahaantii filimkan waqti waan ku bixinay dadaalna waan ku bixinay idinkana waad ku mahadsantihiin commentiyada quruxda badan filimka aad ka soo bixiseen iyo maasajada quruxda badan ee dhiirigelinta ah aad ii soo dirteen filimka markaa daawateen waad ku mahadsantihiin mid kale waxaan markaa u mahadcelinayaa dadka filimkan ka qayb qaatay Tubeec فاطمة هريان الفنان عشرة مامية عبد الرشيد نعيمة ضمان انت كقب قادتي وحان الله هي آدي هذا وما سنتهين already waxaan boqorayba filimkan filimka ku xigi doonaa dib ilaahay yiraahdo magaciisa waxa la yiraahdaa Cafis qoritaankii mar horan dhameeyay ana qoray sidoo u dhici lahaa qaabka filimka uu ka kooban yahay inta qof ay jilayso qisadiisa waxa dhanba waan qoray way diyaarsan yihiin kaliya waxaan isku diyaarinayaa filimkaas muuqaalka aan rabay inaan ku jiro inaan keeno alxamdulillah already waa haystaa in ugu filan inta kalena waan kasii siyaadinayaa trainingkiisa waan wadaa filimkaasna wuxuu ku qabsoomi doonaa haddii uu ilaahay yiraahdo sidaan isleeyahay Kenya waxaana ka qayb qaadan doonaa sidoo kale sidii Faadumo oo kale dad khibrad u leh jilinka haddii uu ilaahay yiraahdo waxaan isku dayi doonaa filimkaas in ay duubaan dad professional ah dhan kastaba haddii directornimo ahaan lahayd haddii duubis ahaan lahaydba waxaan rajeynayaa tallaabada labaad oo filimka Cafis ah inay noqon doonto the best film ever in Somali people waxaa waxaan isku dayaa diriska inaan naga barajeeyo Afrikaanta kala noo waxaan noo balanaa videoga xiga waa saaxiibkan CK idin leh meel kasta aad joogtaan kala Samba, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngozi ya loshe, chombo, 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 peti chuma ni seble, chombo, 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 takapeleka upe, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, chombo.